waxaan idiin soo gudbinaynaa muuqaalkan sheeko kale oo lagu magacaabo hooyo diiday inay edbiso wiilkeeda ilaa uu edbiyo. Hooyo Raxmo waxay dhashay wiil keliya oo lagu magacaabi jiray Maxamed. Sida hooyooyin badan oo kale waxay aad u jecleed wiilkeeda maadaama uu ku ahay madi. Jaceylkeedu wuxuu mararka qaar uu markaasi uu farayay in aysan wiilkeeda si wanaagsan u tarbiyeenin. Waxay ahayd haweeney aan hadalkeeda ficil lahayn oo mar walba ay wiilka wax wanaagsan u sheegto ayada ma aysan samayn jirin. Waxyaabaha ay hooyadan ku dhaqmi jirto waxaa kamid ah xanta, beenta iyo lebis gaaban ay qaadan jirtay. Marka sidaas daraaddeed wiilkeeda waxyaabaha ay u sheegayso ma uusan fulin jirin. Ninkeeda Xaaji Ducaale ayaa lagu magacaabi jiray iyo walaalkeed Bakar oo labaduba aad ugu dhawaa. Waxay si joogto ah ugu sheegi jireen in wiilka ay si wanaagsan u tarbiyeyso isla markaana ay ayada joojiso xumaanta ka hor inta aysan wiilkeeda farin. Laakiin jaceylkeeda xad dhaafka ah dartiis ma aysan awoodin inay si wanaagsan u hagaajiso wiilkeeda. Dad fara badan oo waxaa jira hooyooyin, aabooyin leh ama bulshada inteeda badan oo dadka wax fara ayagana aan ku dhaqmin. Waxaan meeshaan ka ogaanaynaa mar walba oo aad doonaysid inaad dadka wax u sheegto in aad marka hore adiga aad ku dhaqanto, kadib dadka way kaa qaadan karaan. Markii dambe Maxamed wuu weynaaday oo wuxuu noqday wiil weyn oo bulshada dhex galay, wuu isbedelay. Wuxuuna noqday qof edeb fiican leh oo dhammaan xumaantii uu samayn jiray waa uu ka tegay. Dhaqankiisana wuu wanaagsanaaday. Wuxuu noqday mid lagu daydo oo dhalinyarada ficiisa ay ku daydaan oo ay yiraahdaan Maxamed oo kale yaa ka dhigo. Hooyadii Raxmo oo aan horey u garanayn muhiimadda edebta waxay si tartiib ah ugu cibri qaadatay wiilkeeda. Waxayna aragtay in ay markaasi ayadu ay khaldaneed. Waxayna go'aansatay in ay xumaanta ay ka fogaato oo ay iska dayso maadaama wiilkeeda uu ficil ahaan oo hooyadiis wax ugu sheegay. Sidaas ayuuna qoyskii uu ku noqday qoys wanaagsan oo dhan kasta ka wanaagsan. Qisadan maanta intaasi ayaan kusoo gabagabeynaynaa. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay oo horey aad subscribe nolo saaray si aad muuqaale kale ula socoto, subscribe noo saar isla markaasina like noo saar si aad inoo dhiirigeliso. Share gareey si ay dadka uga faa'iidaystaan. Mahadsanid.